marka la kulanti wanaagsan daawadayaal u diyaar garooba wararkaasi oo dhameystiran waxa warka soo jeedinaya aniga Fardowso maxamed Sahal Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta waxa uu kormeeray qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre waxa uu kormeer ku tagay wasaaradaha maaliyadda, arrimaha dibadda, qorsheynta shaqaalaha iyo wasaaradda howlaha guud si uu ugu kurgalo habsami u socodka howlaha dawladda iyo adeegyada ay wasaaradahaasi u hayaan bulshada. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ugu horeyn waxa uu shir gudoomiyay kulan lagu qabtay xarunta wasaaradda maaliyadda kaasi oo looga hadlayay dardargelinta qorshaha cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa sidoo kale waxa uu kormeeray wasaaradaha arrimaha dibadda, qorsheynta iyo shaqaalaha iyo wasaaradda howlaha guud waxa uu faray wasiirada iyo sidoo kale howlwadeenada wasaaradahaasi in ay laba jibaaraan fulinta shaqooyinka iyo howlaha ay u hayaan qaranka. kormeerka Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu qayb ka ahaa howlaha joogteynta lagula soconayo shaqooyinka wasaaradaha xukuumadda iyo hay'adaha kale ee dawladda si loo xaqiijiyo isla xisaabtanka ku saleysan daahfurnaanta. Maamulka gobolka Banaadir ayaa muddo kadib maanta waxa uu dib ugu wareejiyay haweeney gurigeeda in muddo aan laga haystay. Warbixinta warkaasi waxaa soo jeedinaysa wariyaheena Fartuun Cabdinuur Fartuun Qaran. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo ay wehelinayso gudoomiyaha degmada Shibis Safiya Sheekh Cali ayaa maanta Madiina Cabdullaahi Maxamed ku wareejiyay guri ay leedahay oo muddo 7 sano ah laga haystay. Madiina Cabdullaahi Maxamed oo la hadashay saxaafadda ayaa mahadcelin iyo boogaadin u jeedisay maamulka gobolka Banaadir oo suuro geliyay inay dib u hesho gurigeeda oo 7 sano laga haystay. maanta ma sha Allah gudoomiyaha Banaadir inuu maanta alxamdulillah shukr bacaan oo nagu daahinin حجنا أنا أركن الحمد شكر رب العالمين سيد وناق أو حلال طيب إنه وريجي بإذن الله كريم أنت أمد المحمد وكل خير وذكعي وقول جودي أدونك دلوا وقد باشت الله نجود ديكو. gudoomiyaha degmada Shibis Safiya Sheekh Cali oo dhankeeda hadal kooban ka jeedisay munaasabada gurigan lagu wareejinayay Madiina Cabdullaahi Maxamed ayaa xustay in maamulka gobolka Banaadir uu taagan yahay in xuquuqda ka maqan ay helayaan dadka ku nool magaalada Muqdisho. gudoomiye waxaan kaaga mahadcelinayaa sida hufan oo maalin walba ugu taagan tahay qof walba islaam oo Soomaali ah ina u soo dhicisid xuquuqdooda ay lahaayeen maanta waa maalintii labaad oo Shibis aan ku wareejinayno guri qof muwaadin ah laga haystay 7 sano kadib haduu al yiraahdo 3 kalena jidkay ku soo jirtaa gudoomiyeen wuxuu u taagan yahay cadaaladana deeqdo qof walbo islaam ahna waxaan dhihi lahaa guriga aan lahayn iskaga bax afisna weydiiso. gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yurisow ayaa sheegay in dadka haysta gurigani maanta lagu wareejiyay ay baneynayaan kadib markii wada hadal iyo iscafin intaba ay dhex martay labada dhinac. in maanta Madiina Cabdullaahi Maxamed gurigeedii lagu wareejiyay muddana maaragtay dad ay si qaldan uga haysteen arintan runtii waa arin ku timid Madiina oo soo qoratay fariin qoraal wax loo yaqaan text message xiriirka dadweynaha iyo maamulka degmada Shibisna ay runtii ka howlgaleen sidii gurigeedii iyo dadkii deganaa iyo dadkii dadka kareeyaba si nabad ah dib u heshiisiin looga dhameeyay isla markaana ayagoo isku faraxsan maanta furaheedii la wareegayso. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu degniin u diray dadka xoog ku haysta dhul aysan ayagu lahayn waxa uu sheegay gudoomiyaha in tilaabo adag ay ka qaadi doonaan dadka sida awoodda uga haysta dadka guryahooda taasi ayuu sheegay in ay xiligaani dhamaatay. mar kale waxaan ku celinaynaa in dadka guryaha laga haysto guryahoodii loo celiyo si nabad ah hadii kale waxay noqonayaan in maxkamad la tago waxaana bilaabnay baryahan cidda oo dokumenti been abuur wadata in talaabo sharci laga qaadi doono. xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho maanta waxa ay ku qabatay dad ku saabsan ahmiyadda ay leedahay dardargelinta howlaha caafimaadka dalka. wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka gudoomiyaha ururada bulshada rayidka مسؤوليinta xarunta tala-soo-jeedinta Soomaaliyeed iyo bahda caafimaadka ayaa ka qayb galay dood ku saabsan horumarinta adeegyada caafimaadka oo maanta Muqdisho lagu qabtay. waxaa laga hadlay heerka tayo ee adeegyada caafimaadka waxaana xarunta tala-soo-jeedinta Soomaaliyeed oo qabatay doodaasi ay soo bandhigtay xog ururin ay ka sameeyeen adeegyadaasi dhanka caafimaadka.
daawooyinka la isticmaalo dalka waxaa soo gasha daawooyin fara badan oo ka kala yimaado dibadda dalal kala duwan daawooyinkaas cid kontaroosha ma laha ama airport ha ka yimaadaan ama ha ka yimaadaano deked wax kontaroolo ma laha daawadaas farmashiyihii ay ahayd in wasaaraddu caafimaadku ay kontaroosho lama kontaroolo hadda adigoo aanan weligaa farmashi aadan furan waa furan kartaa daawadaa rabta aad ka geli kartaa waa la keenaa kuwa oo garaamkooda dhiman yahay wasiiradda shalay waxay noo sheegtay inay hadda khatar loogu jiro resistantka ama taxamulka uu sameeyo bacteriada iyo maxaan ku idhahdaa viruska uu sameeyo in ay aad qadiyaan looga taagan yahay sababtana waxaa waye daawo aan dhammaystirnayn aad dalkii soo gelayso cid kontarooleysa oo ka celinayso ma jirto. cismaan tahliil shaatax guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ayaa ka hadlay muhiimadda in laga doodo arrimaha caafimaadka. haddaba dadaalo ayaa socdo sidee dadaaladaas kor loogu qaada waxaan ogsoonahay inuu jiro sharci arrimahaas ka hadlaayo sharcigaas oo baarlamaanka aqalka hoose uu baasmareeyey balse weligu yaallo aqalka sare waxyaabaha as leenahay waxay u baahan yihiin dadaal fara badan in la geliyana ay tahay sidii aqalka sare sharcigaas uu u dadejin lahaa gudbadiisii haddii ay wax ka dhiman yihiinna ay kula soo laaban lahaayeen ciddii markaas tala ka geysan karto. wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka maxamed cabdixayr maaraye oo ka qayb gala doodaasi ayaa sheegay in uu gudbiyey sharciga kontaroolka badeecadaha. wali anigu hadda hal sano ayaan wasaaradda ganacsiga joogaa golaha wasiirada waxaan geeyey Somali Bureau of Standard 20 Juun 2018 ayaan 6 bilood markaan joogay guddigii oo magacaaban iyo waxaan geeyey sharcigii ayaan geeyey waxaan soo jeedinay inaan qaadano East African Standard hadda xilliga hadda oo standard runtii aad u fiican oo macquul ah way kollay programmiska golaha wasiirada u yaala badan wali xogaynta waxay ku jirtaa golaha wasiirada laakiin almost 6 months before 6 bilood ka hor caafimaadka loona hubi karo dawooyinka la isticmaalo ayaa ka mid ahaa waxyaabihii aad looga dooday. سعيد جامع قرشيل قدومي كحجينك حرونتا ترسوجينتا سوماليين ayaa ka hadlay doodaasi ay qabteen inaynu u baahannahay waddankeenu inuu benisamaadkiisu ahaan jiray isi ka fiican caafimaad bilaash la haystay waxbarasho bilaash la haystay amni buuxa la haystay marka waxaanu qiraynaa dadkayga anagu aan ka midnahay oo soo gaaray intaas in haddii aan wax ka fiican heli karin in la gaarsiiyo wixii la haysan jiray marka cusbitaallada dowladdu leedahay oo dadka lagu daweeyo oo lacag laga qaado dhakhaatiirta waddanka magaca kor oo dhan cusbitaallada dowladda gelinka hore ayay ka shaqayn jireen loogu tegi jiray in sidii si ka mid ah la helo. Salabaan Xaaji Axmed Raagi, Dalsan TV, Muqdisho. iyadoo weli aan wax xal ah laga gaarin khilaafka ka dhaxeeya labada aqal waa baarlamaanka iyo aqalka sare kadib markii warbixin uu soo saaray aqalka sare uu ku sheegay inuu hakiyay wada shaqayntii kala dhaxaysay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa soo taraya baaqyada ku aadan sidii arintaasi xal looga gaari lahaa. ururada bulshada rayidka ah iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka hadleen sidii arintaasi lagu dhameyn lahaa. gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah Tahliil Shaatax iyo sidoo kale Siciid Qorsheel oo mar soo noqday wasiir ayaa arrimahaasi ka hadlay. anaga doorkeena mar walbaba waa sidaan ugu qareemi lahayn ugu doodi lahayn waxyaabaha muhiimka u ah bulshada. arrinka hadda ka hadlaysaan khilaafkan oo kale bulshada muhiim u yahay maxaa yeelay khilaafyada siyaasadeed oo waddanka ka jiro waxay mar walba dib dhac ku sameeyaan sidii ummadda mataqaana wixii loo qaban lahaa. saas darteed anaga waxyaabaha aan doorkan looga aadan wuxuu noqon karaa inaan dhexaadin ka qaadano oo aanan ka shaqeeyno sidii arinta khilaafka wax ka dhaxmaray loo xalin karo balse waxaan ku kalsoonahay inay qabaan guddiyo qaabilsan arrimaha khilaafaadka inay jiraan bal guddiyadaas markii ay ka soo gudbaan ama ay wax ka qaban waayaan inaan anagana markaas isku dayno inaan markaas aan sidii loo yareyn lahaa
khilaafka noocaas oo kale maxaa yeelay khilaafada jiro mar walbaba waxay dib u dhac ku sameynayaan horumarka dalkan anu halkan waxaan arkaa inay wada shaqayn karayaan labada dhinac si fiican bay wada shaqayn karayaan wax allaale wax xumaanay haba yaraatay ma jirto laakiin sideeda waxa la jecel yahay wax yar haddii ay khaldamaan in la yiraaho cirkii iyo dhulkii baa soo dumay ma laakiin waxaan qabaa waxa weeyaan xoogaa waxbay tirsanayaan aqalka sare sidaan maqlayay in iyagu ay shaqooyinka qaarkood la garab maray oo lala soo marin wax laga wada hadli karo moogta laakiin waa meesha ugu dambeysay oo aqal dib dambe loo wada shaqayn maayo ma dhacayso waa la wada doortay waana la dooranaya aqalka sarena wuxuu leeyahay inuu yahay matalaada gobolada waana ka duwan yahay doorashada sidii lagu soo kala xushay anigu guddiga doorashada ka mid ahaa waxaa lagu soo xushay aqalka shacabka 51 qof soo dooranayay qoladan maxay ahayd aqal senatorskase baarlamaanada maamul goboleedyada soo dooranayay marka way ka duwan tahay politically iyaga laftigooda inay fahmaan balqaatay mas'uuliyadda saarantay la eg tahay iyo waxay ka shaqeynayaan waxay tahay marka waa diiday waxaas u maleyn mas'uuliyad sare dadka maanta Soomaaliland inay sugayso inay qaabkaas ay runtii maanta ay maaragtay ay ku khaldami karaan marka anigu waxaan hadalkii soo gabageynayaa waa la istijaabinayaa qofku markuu cusub wax badan baa iga maqan waa oranaya laakiin sharciga marka la guda galo qof walba xaq u leeyahay waxa kala la ogaanaya sharcigiisa sidiisana ayaa loo baahan yahay inuu saxo ama kulli ay ku soo ururaysa waa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed isna waa kala saaraya waan filayaa waan baasantiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh afhayeenkii hore ee wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan ayaa maanta Muqdisho waxa uu ku soo bandhigay buug uu ka qoray Allaha u naxariistay taariikhda Xuseen Axmed oo ku magac dheeraa yacni mushkiladda dagaalada sokeeye waxay khasbeen in wax badan oo shacbiga Soomaaliyeed ay fursad u heli lahaayeen inay maanta ka qarsoomaan waqtiga iyo waayuhu isu diido in labada qof ay yacni qofkii wax laga qori lahaa laftiisa aad dhibaato fara badan kala kulanto nasiib waxaan u yeeshay waxaan bilaabay qoraalka buuggiisan 8 sanadood ka hor oo maanta laga joogo 7 sanadood ka hor oo maanta laga joogo intii uusan dhimanin marka waxaan ku iri ka darow sida aad ogtiin naf kasta waa dhimanaysaa ruux kasta oo naga mid ah inta halkan fadhida maalin buu dhadhaminaya xanuunka ay geeridu leedahay waxaan ku iri waad dhimanaysaa waxaad ii sheegtaa haddii aan kaa dambeeyo waxaan dadka u sheego markaasuu wuxuu iigu jawaabay intuu igu qoslay waxaan joognaa magaalada London intuu igu qoslay wuxuu igu yiri dadka iyagaa waximooda waxaan ku iri waxaas wax soconaya ma aha waxa jiri jiray ninkii la dhihi jiray Lennon wuxuu lahaa fikirkii ruushka lagu hogaaminayay ama ha lagu dhiso ama ha lagu burburiyo laakiin hirgelintiisii waxa iska lahaa ninkii la dhihi jiray Stalin waxaan ku iri berito igama yeelay haddii maanta Stalin qabriga laga soo saaro maya Lenin laga soo saaro aniga lahaa fikirkii uu ku shaqeynayay Stalin cid ka yeelaysa ma jirto marka cid iga yeelaysa ka dara dabaal u ahaa ma jirtee waxii sheegan ku iri sababta keentay inaan waxoogaa ka qoro taariikhdiisa ku saabsan sidaasay ahayd ilaa maalintii uu dhashay magaalada maalintii uu soo galay markii uu wax bartay isku daygii uu ka sameeyay afka Soomaaliga wuxuu ka mid ahaa inta la sheegay dadkii ka qayb galay suugaanta deeleyda loo yaqaanay maxamed siyaad barre ilaahay naxariistii jannaha siiyo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya wuxuu u yeeray abwaaniin magacyadooda halkan laga sheegay oo maxamed xaashi dhamac gaariye ee baahay naxariistii jannaha siiyo maxamed ibraahim warsame hadraawi oo weli nool cabdulqaadir xirsi yamyam ilaahay naxariistii jannaha siiyo ee axmed faarax cali idaaja wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed isu soo dhaweeyo dhanka suugaanta waxay gaareen 64 abwaan in ay suugaantii deeleyda ahayd ka qayb gasho marka galbaha ka mid ah wuxuu ku lahaa labadii tixood dhowr tixood uu ku lahaa laakiin 3 tixood buu iga sheegay haddii aan u soo noqdo maanta waa hambalyo kale waa munaasabado xambaarsan ama 2 munaasabadoo isxambaarsan oo ah munaasabadii weyneed oo xasuusataan oo 1973 diiwaan gashay ah taariikhdii ugu horeysay af Soomaaliga la qoro taa runtii waa taariikh Soomaalida aad iyo aad yani xasuus weyn ku leh taariikhdaas oo runtii yani lagu xasuusto
intii curisay oo markaa majaraha u haysay siyaasadda ugu horeeyo allah u naxariistee madaxweyne maxamed siyaad barre iyo raggii markaa runtii garbaha u ahaa oo taariikhda runtii yacni lameeloobaanka ah oo soomaaliga maanta uu noqday inta goobood ama adduunyada yacni af soomaaliga yacni soomaaliga ku nooshaa maanta af soomaaliya in looga hadlo ay isku afgartaan soo qoraal ah weliba awal waa lagu hadli jiray qoraalkiisii halka uu yacni ka sahlo in luqooyinkii shisheeyaha ahaa uu bedelo meelo badan waa munaasabad runtii aada iyo aad yacni hadda maraan weydiinayay guddoomiyaha uu ii sheegay runtii maanta munaasabadda soomaaliga weliba in xooggeedii laga dhigay munaasabadda febraayo oo la qaban doono oo yacni ku astaysan maalmo badan oo kulmin doonto hadhow saa noo sheegi doono insha allah marka af soomaaliga waa ogtihiin baahida looga baxay kuma sii dheeraanee waqtigeedii munaasabadeeda kale aan u dhaafi doonaa balse waxay ka mid tahay guulihii yacni runtii uu kacaan ka gaaray oo ay ka mid tahay ama ay ka mid yihiin keliya maaha af soomaaliga guulo badan baa jiray oo in isxasuusin u baahan uu ka mid yahay yacni guushii yacni muxuu ahayto jaamacadaha oo aniga aan ka mid ahay productkii ama kaadiriintii ugu horreeyey ee jaamacadda qaranka soomaaliyeed ka soo baxa kuliyaddii ugu horreysay ee caafimaadka dafcadii ugu horreysay ee dafcad marka halkaas aad ogtihiin saa la socotaan la yiri weliba intii oga og la yiri yacni kuliyad caafimaad kama hirgeli karto waddanka halkaasna riyadaas la rumeeyey kadib markii 17 ugu horreysay oo aan ka soo baxnay iyadoo aan waqtiga aan sheegi doonin aan ka soo baxnay balse la wada ogyahay dowladda Soomaaliya waxa ay ka dalbatay wadamada caalamka in lagala shaqeeyo dhinacyada ammaanka iyo siyaasadda warbixin umuurtaasi la xiriirta waxa soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Ciise Maxamuud kulan madaxeedkii hogaamiyaasha Carbeed ee shalay ay ku yeesheen caasimadda dalka Lubnaan ee Beirut ayaa waxaa looga hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada iyadoo si weyn looga hadlay sidii loo taageeri lahaa dowladaha Carbeed ee dhibaatooyinka ay ka jiraan sida wadamada Yemen, Syria iyo Falastiin. warmurtiyeedka laga soo saaray gunaanadka shirkaas ayaa dowladaha Carabta loogu baaqay inay si ficil ah u taabigeliyaan go'aanka shir madaxeedka Carabta ee ugu dambeeyay ee lagu go'aamiyay in dowladda federaalka bil kasta la siiyo kaalmo dhaqaale oo gaaraysa $10 milyan iyadoo muddada kaalmada ay socon doonto muddo hal sano ah. dhinaca kale guddoonka shirka dhaqaalaha iyo horumarinta dowladaha Carbeed ayaa waxaa kaloo ay ugu baaqeen dowladaha Carbeed in ay Soomaaliya ay ka cafiyaan lacagaha deymaha ay ku leeyihiin. hogaamiyaasha Carbeed waxa ay soo dhaweeyeen dowladaha Sacuudiga iyo Algeria oo iyaga ugu horeeyay in Soomaaliya ay ka cafiyeen lacagihii deymaha ay ku lahaayeen. dhinaca kale shirkii madaxda Carabta ee dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada ee shalay ay ku yeesheen caasimadda Lubnaan ee Beirut waxay isku raaceen in shirkooda ay soo socda lagu qaban doono caasimadda dalka Mauritania ee Nouakchott sanadka 2023. shirka waxa uu ku soo beegmay xilli xasilooni darro siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee ka jirto dalka Lubnaan oo martigelinaya 100,000 oo qaxooti Suuriyaana iyo Falastiiniyiin isugu jira. haddaba dalalka ka qayb gala shirkaas waxaa ka mid ah Soomaaliya oo doonaysa in dalalka Carabta qaarkood ay ka cafiyaan deymihii ay ku lahaayeen. wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shirkaasi Soomaaliya u matalayay wasiirka arrimaha dibadda sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin warmurtiyeedka ka soo baxay oo lagu sheegay inuu yahay mid wax badan ay soo dhaweynayso dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama dalal badan ay bilaabeen inay ka cafiyaan deymihii ay ku lahaayeen Soomaaliya. warka telefishinka Dalsan ay la socotaan markan waxaan eegaynaa wararka ciyaaraha waxa aalaba soo jeediyay wararka ugu waaweyn ee dhinaca ciyaaraha Maxamed Qasmaan Cali Maxamed Qalfa. xubinta ciyaaraha daawadayaal waxaan ku soo qaadan doonaa waxa la ciyaaro kulamo ka tirsan horyaalada liigaha Serie A iyo sidoo kale Premier League waxa la soo gabagabay horyaalka Premier League kulamada 23aad xalayna kooxaha kubadda cagta ee City iyo sidoo kale naadiga Tottenham Hotspur ayaa ciyaaro kulamadii ugu dambeeyay. City waxay la ciyaartay naadiga Huddersfield ciyaar xiiso badneed oo labada kooxood dhaxmartay. kulankan ayaan ahaa mid wiilasha Pep Guardiola ay ku doonayeen inay ku soo yarayaan farqiga dhibcaha ee laga reebi lahaa Liverpool ee 7 dhibcood mar walba ay ka dhigto. ciyaartan ayaa ka dhacday naadiga Huddersfield gurigooda wuxuu ku soo dhamaaday kulankan 3 waxba oo ay ku badiyeen wiilasha Manchester City. goolka koowaad Danilo ayaa dhaliyay daqiiqadii 18aad qaybtii hore sidaas ayaa lagu kala marmarkii la isku soo laabtay 54 daqiiqo. Sterling ayaa soo taabtay shabaqa
kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town laakiin 56 daqiiqo 2 daqiiqo kadib waxaa ciyaaryahanka reer Jarmal ee Dalsan ayaa ciyaarta ka dhigay 3-1 wiilasha Pep Guardiola ee Manchester ayaana sidaas haddaba uga adkaaday kooxda kubadda cagta ee Huddersfield Town iyagoo dhaliyay 100 gool tartamada oo dhan waana kooxda ugu sareysa marka laga hadlo kooxaha qaaradda Yurub kulan kale ayaa laga ciyaaray Premier League waxa uu dhexmaray kooxaha London ka wada dhisan ee Fulham iyo Tottenham Hotspur ciyaartan ayaa ahayd mid aad u xamaasad badan naadiga Tottenham ayaa ku badiyay 2 gool iyo gool Laurent ciyaaraanka lagu magacaabo ayaa goolka koowaad iska dhaliyay oo weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Tottenham iyadoo kooxda kubadda cagta ee Fulham hal gool waxba ku marsisay naadiga Spurs laakiin markii la isku soo laabtay ciyaarahan Daawo ayaa ciyaarta ka dhigay gool iyo gool daqiiqadii 51 ciyaarta oo dhamaad ahi oo la islahaa gool iyo gool ay ku kala baxeen labadan kooxood Harry Winks ayaa haddaba goolka guusha u dhaliyay kooxda Tottenham wuxuuna ciyaarta ka dhigay daqiiqadii 90aad 2 gool iyo gool sareed haddii aan eegno daawadayaal kulamo ayaa laga ciyaaray naadiga Fardowso iyo Atlanta ayaa wada ciyaaray 5-1 Atlanta ayaa ku badisay halka Fiorentina iyo Sampdoria 3-3 ay ku kala baxeen Spal iyo Bologna gool iyo gool ay ku kala baxeen Cagliari iyo Empoli 2-2 ay isla dhaafayeen halka Napoli ay garaacday kooxda kubadda cagta ee Lazio ciyaar ka dhacday guriga San Paulo ay ku ciyaartay Napoli 2 gool iyo gool ayayna ku adkaaday caawa kuna ayaa laga ciyaari doonaa Serie-A Juventus iyo Genoa ayuu dhexmari doonaa saacadu markay tahay 10 habeenimo iyo qadar 30 daqiiqo ama 4 saac bar ayay ciyaartan ay dhici doontaa La Liga haddii aan eegno Real Betis iyo Girona ayaa wada ciyaaray 3-2 naadiga Real Betis ayaa ku adkaaday Villarreal iyo Athletic Bilbao gool iyo gool ayay ku kala baxeen Real Vallecano ee Real Sociedadna 2-2 ayay ku kala baxeen laakiin kulankii xiisaha badnaa wuxuu ahaa kii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Leganes ciyaartan ayaa ka dhacday garoonka Camp Nou Stadium oo ay ku ciyaartay Barcelona 3 gool iyo gool Blaugrana ayaa ku adkaatay iyadoo Lionel Messi lagu bilaabay kulankan keedka daqiiqadii 32 Ousmane Dembele ayaa hoggaan ku dhiibay kooxda kubadda cagta ee Barcelona sidaas ayaa lagu kala maray markii la isku soo laabtana Martin ciyaaraanka Bradway lagu magacayaa ka barbareeyay goolka kooxda kubadda cagta ee Barcelona wuxuuna ciyaartu ka dhigay gool iyo gool laakiin Barcelona ayaa u baahatay adeega Lionel Messi waxaa laga soo kiciyay fadhiga wuxuuna ugu dambeyn ciyaartu uu natiijada Barcelona u suurtageliyay inay badiso kadib markii daqiiqadii 71 uu Suarez caawin uu siiyay uu gool uu ku dhaliyay halka 90 daqiiqana asaga uu soo afjaray goolasha kooxda Barcelona 3 gool iyo gool ayayna Leganes ku garaacday kulan kale ayaa la ciyaaray wuxuuna dhexmaray Lafente iyo naadiga Real Valladolid 2-1 naadiga kubadda cagta ee Lafente ayaa ku adkaatay daawadayaal xubintii ciyaarahana halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Maxamed Deeq haddii aynu halkaas ciyaarihii ku dhaafno markan wararka ugu waaweyn dhinaca dibadda ciidamo ka tirsan nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay ee ku sugan dalka Mali ayaa la sheegay in lagu dilay gudaha dalkaasi ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada nabad dhalinta qaramada midoobay ee dalka Chad ayaa ku geeriyooday 25 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii Malaysia hubaysan ay weerar ku qaadeen xarunta nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay ay ku leeyihiin deegaanka Al-Guul oo ka tirsan gobolka Kidale waqooyiga dalka Mali kooxda Al-Qaacida ee ka dagaalantay waqooyiga qaaradda Afrika ee magacooda aqim loo soo gaabiyo waxa ay sheegeen in ayagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi waxayna intaasi ku dareen war ay soo saareen in ay ka soo horjeedaan booqashada ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu uu ku joogo dalka Chad xogaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu cambaareeyay weeraradaasi lagu dilay askarta ka tirsan ciidamada nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay waxa uu u baaqay Malaysia weerarkaasi geysatay in la hor keeno sharciga sida uu sheegay ergeyga u jooga qaramada midoobay dalka Mali Maxamed Salah Al-Nadiif ayaa weerarkaasi waxa uu ku tilmaamay fal dambiyeed nacasnimo ah sida uu sheegay isla markaana ay aad uga xun yihiin qaramada midoobay dalka Mali waxa ka jooga 12,000 oo ciidan ah iyo sidoo kale booliis ka howlgala goobaha nabad ilaalinta ay u joogaan dalkaasi waxaana lagu tilmaamaa howlgalka qaramada midoobay ee nabad ilaaliyaasha halkaasi ku sugan in ay ka howlgalaan wadanka ugu khatarta badan ee nabad ilaaliyaasha qaramada midoobay ay ka howlgalaan warkii daawadayaal idinkaga imaanay telefishinka Dalsan xaruntiisa dhexe ee Muqdisho anaga inta aniga Fardowso Sahal ayaa wararka soo jeedinayay wararkan oo kale intaan dib ugu kulmayna hadii Allah qadaro waxaan idinkaga tageynaa waqti wanaagsan Dalsan TV isha wararka sugan